واي قف صلاة تكذا بل ودهن إيه وحن أمد لقوا امتحامي الدين تيدد لماذا بكفوا جينا يكفك أما أنا لقوا يقانو تاريخ دي صديب الله يجي شخصية دي سيادة لماذا هذا واحد دوراني صدوره أودنا وله تكلا ويديم حادو دون السما تحتني ماذا تذكر كل مركب واحد كسب بوديسا إنه مدحتني ماذا ودون أيوه مشاهر يرين وصعده marka la fiis wuxuu doonaya ama magac buu meesha ka baadi doonaya dadka qaar koodna inagu war rumaysanayna marka hore marka dambe ayay beentii soo bixi haduu been sheegay waxa oranayaan aniga waxa iga dhaba oo u doonaya arrinka noocaas aan doonayna wax ka qabto arrinka waana qof looga qaateena marka qofkii in laga gungaaro la waraysto oo sifaadkaas iyo tilmaamaha laga eego ayaa waajiba dawladda umada xilba ka saaran dadka madaxda kuwa axsaabta u taliya dadka markay la hadlayaan waxay leeyihiin doorkan dad fiican doorta saasay ku celcelinayaan iyaga ayaanay mas'uuliyadda koowaad saaran tahay mararka qaarkood iyagaaba ka dhabqinaya dadkii dad fiican doonayay oo reerba ilaahay waafajinaya inay iska soo xulaan nin wanaagsan oo laga yaabo sifaadka inuu leeyahay iyaga reerka laftiisi waxay ka dhex dooranayaan mid aad iyo aad khayrka iyo wanaaga iyo amaanada intaba aad iyo aad uga fog marka iyaga ayaa qayb ka umada lugoyntooda iyaga laftoodu sifaadka noocaasi ah ila iyaga lis garaynaya oo aqbalaya qofka sharaxaya doorasho doonaya waa in sifaadkaasi ay ka eegaan dawladda waajiba ka saaran axsaabtan iyo siyaasiyiinta iyagana arinta noocaasi waajiba ka saaran أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله سنشاغني دورشوين كان مشاكل يدباتوين بدن بالليين وحا أي حنبارسيهن meesha u sarreysay ay gaadhaan waa in la yiraahdo waa adduunyo adduunyana ma banaana in lagu dhiso jacayl iyo nacayb siin iyo qadin in lala nabdo qofkiiyo in la colaadiyo soo dhaweyn iyo fogeyn taasi dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysani waxay ku dhisaan dadka xaaladooda diineed bay ku dhisaan waa ka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان إن إلهي درادي عدي متيسة الله تعالى عدي متيسة الله نعا إيمانك قنت ميسة كو أدق متك مدوي إنما المؤمنون إخوة إيمانك أيادتك ولا عليا المسلم وأخو المسلم مسلم كوا مسلم كا ولالك يعني دعين إن بدن بيهرو صد عضيه وحا إن لا يسكن نوعه إن لا يسكن عول وكلا تجوا ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث قفنا وما بنانا ولكن وجوية يدارين الدنيا دحمر تاعي كذا لا تترس صدق واحد كبدر هذو كعلى سيام الدباتات كتير سطو صدق مع المدوى لجو جولية يسكسوا على بربر يسولد قبائل صو حسابتا لكن أتكبر يسولوا ما وقلا وهجر المسلم كقتله قف مسلمين تجويسوا الدنيا وجد هذا جويسا دلكي سو كلويا حق فول حمضة سوري النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت هذا يسكن عيا لما قف قرابة يسكن عيا يمو دورنا يقوموا ردي بالا يسكن عيا ويقول عريرية وإلى ترتبي بالا يسكن عيا وحال يسكن عيا رير هبل بريق هروان وقول ردنا ما أنت وين وقول ردواين nin baa wuxuu yiri doorashooyinkii hore ku dhacay war dhicistan dhacayba waxa igaga daran dadka kii iga soo horbaxaba shaydaanku baa igu oranaya kuugu ridin haduu kuugu ridi lahaa kaas waad soo bixi lahayd marka nacaybkan dadka u qaadiba wax walba igaga daran buu dhicistan dhacayba ruuxan wax mudan ma aha in la isku naco siyaasiyiintuna iyo dadka xukunka doonaya mabaadi kuma shaqeeyaan masaalix bay ku shaqeeyaan
waa laga yaabaa dadka inay u muujiyaan inay isnacabin ama aada u kala fog yihiin. beritoolana waxaa laga yaabaa kuwa isugu dhow iyagoo inaad aragto dantoodii baa iswaafaqday. nin siyaasiyabaa meel aan fadhiyey ka hadlay, xisbi uu ku jiraa buu ammaanay, wuxuu ihi kayagu waa khayraysay waa barakaysaye bal kaa kale ha loo duceeye buu ihi. nin odayo waddanka madax sare ka noqday ayaa hadal aad u cajiiba yidhi, wuxuu ihi hebelow shalayna kanaad leedahay ha loo duceeyo ayaad lahayd wuu barakaysaye oo kaa kalaad lahayd ha loo duceeyo, berrina waxaa laga yaabaado dhinaca kale u wareegay in lagu arko. siyaasaddu mabaadi joogtaa ma laha ee waxay leedahay masaalix iyo dano ayaa laga eega. marka dadkaasi daraaddood waa inaanay isu nicin dadkan muslimiinta ee wada dhashay ee islaamnimada iyo iimaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku mideeyey. xataa hadduu qofku dhinac kala maro waa inaanay arrintaasi keenin nacaybshiyo. qofkii inaad nacdo ama inaad colaadiso ma mudno. waxaan saynu sheegnay markiisa horeba wax hagaagsan maaha. haddii xataa adduunyo xalaala u noqon lahaa ayaa in laysku nacaa aanay banaanaateen. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.